rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, midkiin habeenkii hadduu hurdayo waxaa u yimaada shaydaankaasoo sita 3 guntimood. halkaa jeegada ayuu kaga xiraa. guntin walbana markuu xirayo wuxuu yidhaahdaa, seexo, habeen dheer baa kaa dambeeye. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, haddii uu kaco oo ilaahay xuso, guntimihii mid baa furanta. haddii uu weysaystana, midda labaad ayaa furanta. haddii uu dukadana, midda saddexaad ayaa furanta. markaasuu wuxuu kacaa isagoo firfircoon oo ay naftiisu wanaagsan tahay. haddii kalese wuxuu kacaa isagoo naftiisu ay xun tahay, caajislowna ah. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka wada baryaynaa inuu inagu daro addoomankiisa u kaca salaada subax.